aadi aad baan ugu faraxsanahay in uu bilowdo imtixaankii sanawiga ahay ardadan aad u qurux badan ay diyaar u yihiin waxaan leenahay Ilaahay ha u fududeeyo maanta taariikhda ku beegan tahay 19 bishii shanaad 2018 waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno waxaan Ilaahay u weydiinaynaa ardada Ilaahay inuu imtixaanka u fududeeyo natiijada aad u wanaagsanna Ilaahay uu u fududeeyo inay keenaan waxaan kula dardaarmayaa insha Allah inay isku kalsoonaadaan Ilaahayna ku kalsoonaadaan si degan oo qalbigoodu degan yahana ay u galaan imtixaanka waa ku faraxsanaa maanta inaan idin kala soo qayb galno idinkuna farax gelino inaad gelaysaan imtixaankii dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadaysay oo wadanka oo dhan inta badan ka dhacayay galmudugna dhammaanteed ka dhacayay inaan maanta idinka idin kala qayb galno nasiib baad u yeelateen oo aan idinku bogaajino imtixaanka aad gelaysaan waxaan idin leenahay Ilaahay imtixaanka ha idin fududeeyo ana idinku guuleeyo kuwii darajaad sarsare ka keenana Allah idinka dhigo adinkoo qalbigiinu aad iyo aad ugu faraxsan yahay qalbiga ku haya inaad noqonaysaan ardada Soomaaliyeed meel kasta joogaan u rajaynaynaa horumarkii Soomaaliya waaye runtii hal imtixaan inuu ka dhaco dalka Soomaaliya oo isku mar uu ka bilowdo waxay ka mid tahay horumarka hadda Soomaaliya si higsanayso oo ay hore u socoto ayuu ka mid yahay dhabtiya waxa la rabaa fiqan nafsiya inaad isku kala soonaato ayaa muhiim ah intii aad waraaq hoos leesaga dhiibo ama wax calaacasha lagu qoro ama wax maryaha lagu qoro aad markaas yacni lahayd waxa soo dhan waa la iska ilaaliyaa waxa weeye waxaan rajaynaynaa adinkoo saatan u wada socdo hal qof oo idinka dhicin inaad sanadka soo socdo jaamacadda u fariisataan